Kulanti iyo aragti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada Miftaax Tube. Booqashada wasiirka Turkiga Hulusi Akar uu ku aaday Qatar iyo ku dhawaaqida soo dhaweyntiisa Amiir Tamim bin Hamad Al Thani ee caasimadda Dooxa ayaa dhaliyay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan himilooyinka booqashada waqtiga xasaasiga ah oo uu ka gudbay Bariga Dhexe. Booqashadu waxa ay u baahan tahay inay ku xirnayd faylka Liibiya, kaas oo marag u ah horumarka degdega ah oo ku saabsan muuqaalada siyaasadeed iyo militariga. Wakaaladda wararka ee Qatar ayaa bartooda Twitter-ka ah ku soo qortay maanta in Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad uu ku qaabilay Dooxa wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar, isaga oo faahfaahin badan ka bixin booqashada. Jariirada aynu warbixintan ka soo xiganay ayaa u dhigtay hadalka in booqashada lama filaanka ahayd ee Akar ee Qatar ay timid maalin kadib markii Pentagon-ka ay soo saartay warbixin ay shaaca kaga qaaday in Turkiga ay u dirtay Qatar inta u dhaxaysa 3,500 ilaa 3,800 dagaalyahano ah si Liibiya ay u taageeraan maleeshiyaadka Khalifa Haftar, iyada oo la tixraacayo calooshood u shaqaystayaashii Syria ee Turkiga u kireystay. Waxa ay warbixintu Mareykanka shaaca kaga qaaday xadgudubka ku yimid nidaamkii Turkiga iyo u diridii calooshood u shaqaystayaashii sida ay warka u dhigeen ee Syria iyo Liibiya. Waxay hore u muujisay warbixino hore oo maxalli iyo caalami ah, laakiin warbixinta Pentagon-ka ee xilligaasi waxa ay muujisay ceebo caalami ah oo Akar ay ku muujisay xulafadiisa Mareykanka xilli ay sii kordhayaan wicitaanada caalamiga ah ee diidaya faragelinta Turkiga ee Liibiya. Qaar ayaa ku doodaya in warbixinada ay dhalisay booqashadii Akar ee Dooxa kulankiisii uu la yeeshay Amiirka Qatar waxay runtii noqon kartaa in warbixintu sababtay isbeddel ku yimid aragtida Turkiga ee ku saabsan adeegsiga Suuriya ee dagaalka Liibiya. 7 bilood ee la soo dhaafay tan iyo markii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay faragelin militari gudaha Liibiya, Turkiga wuxuu kumanaan ka mid ah askarta Syria u raray Tripoli si ay uga taageeraan maleeshiyaadka GNA dagaalada ay kula jiraan ciidamada qaranka Liibiya ee loo yaqaan LNA. Falanqaynta qaar ayaa asalka ah xaqiiqda ah in Turkiga uu isku dayi karo in uu adeegsado calooshood u shaqaystayaal dhalasho ahaan ka soo jeeda Liibiya, iyo booqashada wasiirka gaashaandhigga Turkiga ay la xiriirto arrinta maadaama Dooxa ay mar waliba saldhig u ahayd tababarka Soomaaliya iyo halka laga bilaabo iyagoo u qaybinaya dagaalyahanada Soomaalida dhammaan Bariga Dhexe. Bishii Agoosto ee la soo dhaafay warbixin la daabacay ayaa shaaca ka qaaday in tiro ka mid ah saraakiisha sirdoonka Soomaaliya ay tababar ku qaadanayeen Dooxa, taas oo qaarkood loo arko in faragelin Qatar ay ku hayaan howlaha amniga Geeska Afrika si looga faa'iideysto gudaha Qatar raad ku yeelashada meelo kala duwan oo Afrika iyo Bariga Dhexe ah. Isha aynu maqaalkan aynu ka soo xiganay ayaa hadda qiimeynaya xulashooyin kale oo ay ka mid noqon karto in la diro tiro askar Soomaali ah oo taageera GNA-ga Liibiya. Hadalka ku saabsan qaabka cusub ee Turkiga ee la xiriirta calooshood u shaqaystayaasha sida maqaalku uu leeyahay ee Liibiya gabi ahaanba kuma salaysna warbixinta Pentagon-ka ee shaaca ka qaaday amiiradii Erdogan ee Liibiya, laakiin waxa ay sidoo kale timid kadib dhowr maalmood oo dagaal ba'an ay ka dhaceen aagga calooshood u shaqaystayaasha Syria sida wargeysku u dhigayo. waxaad ka daawanayseen kanaalkeena Miftaax Tube. haddii aad ka heshay barnaamijkan subscribe saar kanaalkeena rukumana gambaleelka haddii aad ka heshay muuqaalka si aan u ogaano like saar.